soo dhawaada saaxiibayaal waqti dheer kadib maanta waynu isku soo noqonnay markasta waxaad maqli jirteen AI-gu wuxuu la wareegi doonaa shaqooyinka bini'aadanka maanta waxaan idin hayaa shirkadan loo yaqaano Oracle ayaa shaqada waxay ka joojisay 30,000 oo shaqaale ah si ay u maalgashato AI-ga. Oracle haddaynu isdul taagno waa shirkad ka shaqaysa software-ka sida cloud storage-ka, data analytics-ka iyo iibinta serverada. Shalay toole ayaa waxay u dirtay email dhammaan shaqaalaheedii. Marka emailada waxay u direen markay ahayd 6:00 subaxnimo 31 Maarish. Qof walbaana waxay u direen markaa shaqaalooga 30,000 ka mid ah. Emailkaas oo ahaa after careful consideration markaanu si taxadir leh aanu u go'aansanay waxaan go'aansanay inaan idin sii dayno oo ay noqoto beri toole maalintiini idinku dambeysay. Marka saaxiibayaal shaqaalaha la eriyay waxaa ka mid ahaa dad aad iyo aad waxbarashadooda u sareyso oo ahaa senior engineers, dad operation leaders ah, dad program managers ah, dad technical specialist ah. Dadkaasina waqti xaadirkan la joogo ma ahayn dad laga maarmo oo waxay ahaayeen dad waqti badan waxbarashadoodiina ku soo qaatay xirfad aad iyo aad u fara badan leh. Taas waxay ku tusaysaa markaa in mustaqbalka dhow ay dhici doonto in shaqaalayaal aad iyo aad u fara badan laga maarmi doono. Ka shirkadu inta badan waxa ugu weyn ee ay shaqaalaha u yareysay waxay ahayd in lacagtii shaqaalaha ku bixi lahayd ay ku tababarto AI kuna soo iibiso kaabayaasha oo AI ku dul shaqayn lahaa. Marka tani waa arrin aad iyo aad u culus in 30,000 oo xirfadlayaal ah oo senior ah si fudud looga maarmi karo. Waxay ku tusaysaa mustaqbalku halkuu socdo iyo AI siduu u bedeli doono. Marba fiidiyoyadeena waynu ka hadalnay inagoo leh AI-gu shaqooyinka bini'aadanka wuu bedeli doonaa. Markastana waxaynu ka hadalnay shaqooyinka uusan bedeli karin laakiin haddana si ay tahay uu indirect ugu jiro. Marka ninkan oo haysta AI-ga Grok Elon Musk wuxuu yiri 2000 laga yaabaa 40 waxa jiri doona in 10 bilyan iyo ka badan oo robot ah oo bini'aadanka u eg oo shaqadoodii qabanaya oo loo yaqaano human not robots ay ku dhawaad waqti xaadirkaas jiri doonaan. Maanta dhalinyarta jaamacadaha galaya haddii aad markaa ka fikirayso wixii aad baran lahayd waxay noqonaysaa in waxbarashadaadii aanad ku salayn sida data analysis iyo waxyaabahaas quseeyaad baratid markaa waxaad dhihi karto AI ma bedeli karo. Marka mar walba waxaynu ka hadalnaa sidii AI laftirkiisa aad ula shaqayn lahayd. Markaaynu ka hadlayno AI bedeli doona micnaheedu maaha in robotkaasi uu ku bedelayo. Micnaheedu waxa weeye qof AI-ga yaqaana oo ku shaqaysan kara oo loo yaqaano generalist ayaa bedeli doona. Saaxiibayaal dib baynu u soo noqonay bal videoga like saara si uu qof dad badan u gaaro.